kooxda kubadda cagta FC oo ka mid ah foolaadka kooxaha heerka koobaad ee kubadda cagta ayaa garoonka Garadag Modern Stadium ee degmadaasi Garadaga xaflad sabootin ugu sameeyay Cabdiraxmaan Xasan Salabaan oo ka mid ah laacibiinteeda qadka dhexe uga ciyaara waxaana xafladan sabootinta ugu horeynba ka hadlay mulkiilaha kooxda Carwaka Axmed Ducaale Digaale isagoo sidoo kalena uga tusaaliyay hab ciyaareedka ciyaaryahan Cabdiraxmaan Xasan Salabaan maanta waxaan halkan ka sabooteynaa mid ka mid ah legendiga degmada Bananoon Karaa kana mid ah xidigaha ama starska ay ku duusho kooxda Carwaka number 8kii degmada Cabdiraxmaan Xasan Salabaan Cabdiraxmaan Sheekh kooxda dheer ama caano saad maqasheenba Cabdiraxmaan wuxuu u ambaxayaa dalka dibadiisa waxay u garteen inay maamuusaan sabootina sameeyaan caano waxaan leenahay kaama sabootiino kubadda inay kugu dambayso maanta laakiin inaad maanta ka tagayso deegaankii insha Allah aad ku rajeynayno inaad noo soo noqoto adoo nabad qaba iyo wadanko nabada ayaan ku rajeynaa hadii Ilaahay ka dhigo halkan Cabdiraxmaan waxaa ugu diyaar dhammaan kooxihii degmada qaar ka mid ah gaar ahaan Carwaka kooxdeeda oo la aasaasay 2018 kana soo ciyaartay heer gobol heer degmo hadday noqoto Sool iyo Sanaag iyo degmooyinkeedaba sidoo kale waxaa ka mid ah rag badan oo rag kooxaha kala ka mid ah aan ku soo casuumnay sidoo kale waxaa halkan sabootinta Cabdiraxmaan Caano ka qayb qaatay naadiga yar ee ka academic dhammaantood waxay u helayeen ilaa 3 galabnimo ay halkan u joogaan si ay legendigooda ay u qiimeyn lahaayeen Cabdiraxmaan waxaan leenahay maaha maalintii ugu dambeysay aynu halkan isku aragno ma noqon doonto insha Allah sida aynu baranay maalintii ugu dambeysay aanu halkan ka sabootin doono waxaan rajaynaynaa inaan in badan aanu kugu soo dhaweyno kaana sabootino hadii Ilaahay ka dhigo caano aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay insha Allah safar khayr qaba ayaan ku rajaynayaa barada aniga ku hadlaya afka mulkiilaha kooxda Carwaka waxaan leeyahay Cabdiraxmaan insha Allah soo noqo adoo nabada sabootintii Cabdiraxmaan Xasan Salabaan oo ah ciyaartooyda degmada ugu qaalsanaa haday tahay oo soo maray koox fara badan runtiina maanta alf dhabarta kooxda ka ahna dhexda degmada Garadag runtii ciyaartooy aad iyo qiimeey sharaf ugu leh degmada meel badan heer gobol iyo heer degmaba ka soo ciyaaray kana soo hooyay guulo fara badan Cabdiraxmaan maanta sabootintan ma xamidu ka hubdigtay kubadda cagta ee waa mid uu amba baxay dalka dibadiisa waa ciyaartooy aad iyo aad qadarin ugu haya gaar ahaan aniga Xadraadan Ducaale Cabdiraxmaan waa ciyaartooy aan badan meel kala soo ciyaaray gobollo fara badan degmooyin inta baan guulo fara badan la soo galnaatii kasta Ilaahay waa sababa maanta halkan waxa lagu sameeyay xaflad sabootina teamka FC ka sameeyay qadar Ilaahay ku dhacay waxaasina insha Allah teamkayga iyo dhamaan wana mahad celinaya haday degmada tahay in badan la soo ciyaaray degmada yeelan banaan ka la soo ciyaarayba insha Allah khayr baan isku ognahay ma hadda tan mid ka laalaabayo kubadda cagta laakiin waan si socon doontaa insha Allah mustaqbalkayga خير بيسكو جاي تيم KFC iyo degmada Garadag ba insha Allah kooxo badan oo soo saftay kuwana khayr baan u rajeynayaa assalamu alaykum gabagabadina waxa kooxda FC halkaasi ku qabatay ciyaar ay ku sii maamusayso ciyaaryahankooda ay si sabootiyeen